waxaad u timaadeen baan u malaynayaa inaad ogaataan wixii lagu xukumay dadkii dilkii geystay ruqay sicdayaa leh haddaan xukunka idiin sheego muuna maxamed cabdilaahi ina faadumo cali 7 jira waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaas dila maxamed axmed cabdi ina muuna maxamed waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaas dila sakariya axmed cabdi ina muuna maxamed 19 jira ina muuna maxamed waxay ku xukuntay qisaas dila فرح أحمد عبدي إنه مونا محمد سقالية بنشلة وحي محكمته كحكمته قصاص دلة أفرتها وحي محكمته كحكمته قصاص دلة وحكى محكمته كحكمتي هنا عبد السلام إسماعيل إنه مونا محمد تدبيت بنشلة تاسو الشرع يقول لي تنصر له حركة كحكمتي يدو عدي سديد بنشل كوين فلدن بيجي ستة الشرع يقول لي إن قصاص القصاص وحي كيرنا حرق بلوغو بدلاي لح حرق اسمح كو بلاميا 6 سنه الى 15 سنه marka 10 sano ayay ugu dhignay anagoo cuskanay qodobada sharciga dhigay qodobka 436 leeyahay ayuu cuskanay 10 sano ayay ka dhignay kalsoon xaaji baxnaan xirsi oo iyadoo ku eedeysnayd qodobada dilka ah oo ay masabidiisay gabadha muuna la yiraahdo in hore dilka ugu soo xukunay waxaan u celinay xorriyadiisii sababtoo ah baadidoonka ay gabadhaasi baadi doonaysay ay kulbayada daba socotay ay ugu soo dartay kiiskan ka bacdi markii xafiiska xeeraanku waxa diinana keen waayay dawladda ku cadeyn waayay iskuna raacnay in xorriyadeedu loo celiyo sidaas ayaan kalsoon xorriyadeedu u celinay cabdisalaam ismaaciil maxamed ina faadama nuux oo ah ninkii qabay muuna maalinta afur ku dhacay wuxuu ku maqnaa magaalada Balbaluus uu joogay maba ogeyn muddo bilana gabadha way kala maqleen guriga ma masaxad ka bacdi markii furku dhacay ayuu isagu yimi isaga xorriyadiisa ayaan u celinay maxamed cafan cabdi oo lagu yeedinayay qodobka 297 oo markii baaristu socotay ma jara habaabiyay isla markaana ku sheegay biliiskii iyo ehladii marxuumadda u sheegay inuu ku arkay marxuumadda tuulada kala badh baadi goobkii markii la baadi goobiyay ayaa wuxuu yiri waxay joogtaa sariga gabadha ku arkay buu yiri tuulada kala badh baaristi booliska iyo ehliyadii marxuumadda ayuu ma jara habaabiyay waxay maxkamaddu ku xukuntay sanad xariga sidaas ayay maxkamaddu xukunka ku soo saartay maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii shanaad 014 ya الله ما هذا محاك الله دقبان قصد دعوة الدلكاي دعوة الدلكاي صدح الدرجة أي مرة إلى يصدح المحكمة تذكر عال يا لما قصة سقفك مركز أيا حين عليها يقول مدحوينها هردقة مدحوينها أيا صوص إنجليزية الدلكا ساسية تبتلا وجه كل ما نسا وقصب حتى أنا قاعد هديك لبا صدح الدرجة والله مرينا يا